soo dhaweeyo geesiga Soomaaliyeed haliyeyga Soomaaliyeed Cabdikariim Sheekh Muuse qalbinaga بسم الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا ليال مدريال إيه مروين كسوقيب قلياشة حفلة وين ويسوي مادين أمتي الصوماليات مدحديدي أقوياء كيدي علماء الدين كيدي دلنيراديدي hooyooyinkeedii iyo caruurteedii ay ka soo wada qayb galaan dhammaan aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxa halkan fadhiya madax fara badan oo kamid ah madaxda ummadda Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeedna ka wada socda waxaad ka xusi kartaan oo muuqda ra'iisul wasaarayaashii jamhuuriyadda Soomaaliya oo wajigiina soo istaagay xubnihii baarlamaanka sharafta lahaa madaxdii dawladda Kenya oo ayagana aad wajiyadooda aragteen qayba kamida waxa fadhiya qaybihii dhanaa ummadda Soomaaliyeed cidba wax ka joogtaba oo loo kala maqnay inaan sidaa xusuusto oo intaas wada joogta aan arko aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay mar kale inaan ka soo hormuqdo dadka igi Soomaaliyeed oo midaysan walaalayaal waxa laga yaabaa dhacdadii aniga ugu dhacday inay u ahayd ummadda Soomaaliyeed maslaxo caam ah waan rajaynayaa ilaahna waxaan ka baryayaa inay noqoto maslaxa isu keenta ummadda Soomaaliyeed sidaan halkan u wada fadhino walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin runtii waxaan jeclaan lahaa inaan aad iyo aad idinku mahadceliyo kana hadlo waxyaabihii dhacdooyinka ahaa iyo qaabkii loo hawlgalay ummadda Soomaaliyeed iyo madaxdeedu ay u wada hawlgaleen iyagoon u kala hadhin meel ay joogaanba dibadda iyo gudaha daafaha caalamka say u dhanyihiin sidoo u midoobay damiirkoodu sida isu garab taageen qadiyada aniga iga abuurantay walaalayaal ma iloobi doono wixii dhacay markaan idin leeyahay ma iloobi doono wixii dhacay ma aha haddana inaan leeyahay waan ka dagaalamaynaa dhibban geysanayna laakiin waa raad taariikheed oo soo maray ummadda Soomaaliyeed una baahan inay xusuusna inagu reebto wacyi iyo waayo aragnimada aan ka qaadano horeyna looga socdo walaalayaal shacbiga Soomaaliyeed meelu joogayba sidii uu u kacay sidii uu hawlgalay siday ilmahoodii uga soo tageen shaqooyinkoodii ay u baylhiyeen ilaa ay ka xaqiijinayeen halka ay ku sugan tahay nolosha Cabdikariim Sheekh Muuse oo jariimo foolxun loogu geystay madaxtooyadii iyo caasimadii jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxaysay aad iyo aad baa arrin foolxun sidaad uga dhiidideen sidaad isu garab taagteen qadiyadaas sidaad u dagaalanteen sidaad isugu soo baxdeen sidaad ugu midowdeen runtii waxa weeye arrin taariikhda gali doonta warigeena aan ilaaweyn ugana mahadcelinayo isirka Soomaaliga meelu joogaba haduu joogo caalamka daafihiisa iyo haduu joogo guud ahaan dalka ummadda Soomaaliyeed ay degto waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed ee walaalada aan nahay dhamaanteen wuxuu dagaa dal baaxad weyn deegaan baaxad weyn oo ka soo bilowda buuraleyda Dumeera iyo Baabul Mandad iyo duleedka Nairobi inta ka dhaxle shacbiga Soomaaliyeed iyo dunida inteeda kale intii joogtay waxay ahayd qadiyadaasi qadiyad runtii aanan ilaaweynin waan idinka mahadcelinayaa qorshahaad qaadateen waxay ahayd arrinta aniga ay gaadhay ma ahayn arrin aniga kaliya ugu dhacday waxay ahayd fariin iyo message loo qaybiyay qof kasta oo Soomaaliyana gaadhay sidaad uga dagaaleen waxay difaacday qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliya runtii arrintaasi difaacday xaq baad u lahaydeen inaad istifaacdaan
حق بعضون لهايدين إن أضغط كستو سومالي دفاع ذان حق بعضون ليدهين إن الدفاع النسي وضان هذه هاد بردي كما هاد علينا إياه runtii waxaan jeclahay inaan ayagana runtii aan xuso madaxda ummadda Soomaaliyeed oo ayaduna hawlgalka mid baaxad leeg iyaduna dhinaceeda ka waday xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya dawladda federaalka labadeeda gole aqalka sare ee dawladda Soomaaliya iyo aqalka hoose ee jamhuuriyadda Soomaaliya marka waa golayaasha shacbiga Soomaaliyeed aqalkiisa sare iyo kiisa hoosaba ayaguna sida ay hawlgaleen iyo go'aamada ay qaateen iyo difaaca ay galeen yaan jeclaan lahayn aan iyadana aad uga mahad celiyo shacbiga Soomaaliyeed ma uusan difaacin qadiyada maanta taagan oo kaliyeeta ma uuna difaacin Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ma kaliye ma uusan difaacin wuxuu difaacay mabaadi'dii ummadda Soomaaliyeed ee aasaasiga ahayd dagaalka ummadda Soomaaliyeed oo wana lafmaayna bilaabin dagaalka ummadda Soomaaliyeed iyo halganka xorriyadoonka ummadda Soomaaliyeed wuxuu soo bilowday qarnigii 16aad maantana waxaynu joognaa qarnigii 21aad wuxuu socdaa in ka badan 500 sano ku dhawaad 600 sano socdaa miyaan oran karnaa qadiyadii Soomaaliyeed ee uu hogaaminayay Imaam Axmed Gurey Soomaali ma ahayn miyaan oran karnaa miyaan oran karnaa waxay doonayeen dal Soomaaliyeed ma ahayn miyaan oran karnaa Sayid Maxamed Cabdullah Xasan halyeeygi ummadda Soomaaliyeed iyo ciidankiisa daraawiistu ma ahayn Soomaali miyaan oran karnaa miyaan dhihi karnaa ma ayna doonaynin dal Soomaaliyeed miyaan dhihi karnaa SYL ma aysan ahayn dad Soomaaliyeed miyaan dhihi karnaa ma ayna doonaynin gobonnimo Soomaaliyeed miyaynu dhihi karnaa Nasrullah geeshka Nasrullah ma uusan ahayn dad Soomaaliyeed mana ayna doonaynin dal Soomaaliyeed miyaan dhihi karnaa miyaynu dhihi karnaa 1977 dagaalkii dawladda Soomaaliya iyo shacbigeedu wada galeen Etoobiyana lagaga taagroonaaday miyaan dhihi karnaa ma ayna ahayn dawlad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo doonaya gobonnimo miyaan oran karnaa qadiyadan oo wana laf maanta ay hogaaminayso waxay ku xidhan tahay la mid tahay dagaalkii taariikhiga ee gobonnimada soo jireenka ee ummadda Soomaaliyeed waxa la doonaya waa hal dad waa hal dal waxa la xoreynaya waa hal ummad waxay difaaceen baarlamaanka Soomaaliyeed labadiisa aqal mabaadi'dii aasaasiga ahayd oo ummadda Soomaaliyeed ee soo bilaabatay qarnigii 16aad yay difaaceen haddii ayna difaaceen ay ka aamusaan waxaa dhici lahayd saan aaminsanahay inay dawladda Itoobiya dawladda Soomaaliya iyo dadkeeda ay ku dacwayso maxkamadaha caalamiga ah oo ku eedayso in ay si xaq darro ah ugu soo duuleen dalka Itoobiya burburiyeen dad iyo hantiyada magaalada inay burburiyeen markaana waxay ku yeelan lahayd dawladda Itoobiya waa saan anu leeyahay saan aaminsanahay waxay ku yeelan lahayd magdhow ka soo bilowda qarnigii 16aad kuna yimaada maanta aynu taagannahay oo in ummadda Soomaaliyeed baaxad ay iskaga rogtay awood midna ayna u lahayn aniga waxaan is weydiinayay markii aan arkay marxaladda aan maray markii aan arkay waxaan is weydiiyay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed wuxuu noqon karo bacdama anigu aan qayb ka ahaa gobonnimo doonadii soo jiray ee taariikhda ummadda Soomaaliyeed galay waxaan dhacayna hadda ka hor ayna dhicin runtii baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed wuxuu mudan yahay duco iyo abaal iyo sharaf mar walba in loo hibeeyo lana garab istaago wuxuu gudanayaa si xaq ah wuxuu gudanayaa hawlgalladiisa waajibka wuxuu gudanayaa xaq iyo waajibaadka ummadda Soomaaliyeed ay ku leedahay waa baarlamaan matala guud ahaan isirka Soomaaliga matala way sidaa darteed baarlamaanka Soomaaliyeed mar walba waxaan garab taagannahay shaqooyinkiisa heel iyo hoon wala garab istaagaynaa sidoo kale shacbiga Soomaaliyeed waxaan iyagana la garab taagannahay dhamaanteena loo baahan yahay inay noqdaan walaalo isir walaalo ah weeye dal iyo dad iyo diin ka dhaxayso dhalasha ka dhaxayso ma soo koobi karo mahadcelintii halka ay iga gaarsiisan tahay waa laga yaabaa haddaan hadalladayda qaarkood inay idinka naxiso oo ay noqdaan hadalla qaarkood naxadin iyo tiiraanya leh ma rabo in dadku aad u naxnaxaan ama waxa raba in la adkaysto taa waxaan uga jeedaa waxa weeye aniga oo ah Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed
oo u soo dagaalamay dalka Soomaaliyeed anigoo dagaal ku jira yaan ku qaangaaday waligay ma shaqaysanin shaqo guud mooyaane shaqo gaar maana qabsanin waxaan u soo dagaalamay naftaydii iyo dhiigaygana u horay dadka Soomaaliyeed yaan u soo horay waxaan u shaqaynahay oo u taagnaa ilaa hadda in aan xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed qof kamid uu san ciil qabin inuu sanin gunnimo iyo inuu daciifnimo ugu hoos noolaado dad shisheeya qorshaygu kaas waha mabaadiida caynkaas ah markii aan arkay anigoo dadkaygii ku waayay oo dantaydii oo dhan uga baxay oo dunidan aan ku lahayn hal taako milkiya aniga kuma lihi boos kuma lihi oo guri kuma lihi oo xoolo ma lihi maxaa yeelay intaan ka tagay yaan danta ummadda u baxay anigoo sidaa ugu soo dhintay markii aan arkay dawladda Soomaaliyeed habka ay ila dhaqantay qaabka ay u shaqaysay gaalka ayaa laga qabtay 3 habeen baa lagu hayay si fool xun oo ihaana ah la ila dhaqmay waa laga soo qaaday Muqdisho la keenay waxa la ila dhaqmay si fool xun oo ihaana ah la ila dhaqday markii aan arkay iyadoo intii la gardo duubay oo indhaha la iga xidhay anoo cagacad oo qaawan lagu wareejiyay ciidanka Itoobiya waxay ahayd arrin aad iyo aad iga cadhaysiisay aadna iga naxisay markii aan arkay in mar kaleeto airport ku yaala magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasaya in uu ahaa darafka xuduudda dhuuxiga ma qaan bay dhabaynayd waa suuragal markii aan arkay intii la iga soo dejiyay aan qiyaasay in sawir laga qaadanayo isla markiiba diyaaradii lagu celiyay markii la igeeyay goday oo isugu soo baxeen Soomaalidii qaybteedii xumayd oo goday joogta dhaanta markay ugu dul qabsadeen aflagaada markay miiseen say caayeen markii laga qaaday anigoo ihaanaysan oo ka tiinadaysan oo lugaha ka xidhan oo cagaha oo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan waxaan aaminay in aanan dal lahayn waxa iga dhacday oo qalbigaygu isweydiiyay in aanan dad lahayn waxaan arkay oo nisiri arxan malihid waxa iga baaday arrintaasi waa murugo aad waxaan ku lbahayd waxa iga baaday markii aan arkay oon ogaaday in aan leeyahay walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan oo dareenka fawshaxun hal mar wada dhaqaajiyay oo heel iyo hoob ay la garab taagan arrintaas iga baaday runtii waxa ii muuqatay in aan ahay qofka dadka ugu ehelka iyo arxanka badan waxaan gartay dhibaatadan waxa ii geysatay inay ahaayeen ashxaas dambiir aan lahayn ashxaas shaydaan u hogaansatay iyadana waxa u furan inay toobad keento waxaan hawlahooda uga hadli doonaa markale si fiican walaalayaal runtii ma soo koobi kara mahadcelintiina waan xamaasadaysnahay waana laga yaabaa hadalku inuu iga dhacdhaco waxaan markale ku soo noqon doonaa hadalkayga qaybtiisa dambe wixii dardaarana iyo waxaan anu ku shaqaynayay iyo habka aanu balqaadi doono waxaan sii wadanayaa mahadcelintii waxaan u mahadcelinayaa bahda saxaafadda ummadda Soomaaliyeed ama gudaha ha noqoto ama dibadda ha noqoto oo ayaduna qaadatay door aad u weyn oo gaadhsiinaysa dhammaan shucuubta Soomaaliyeed barba xaaladaydu halka ay marayso iyo qaabkii loo dhaqmay iyo habkii baarlamaanku u difaacay dhammaan saxaafadda ummadda Soomaaliyeed afka Soomaaliga ku hadasha waxaan u tabinayaa hambalyo iyo mahadcelin baan iyadana u tabinayaa lambar 5 waxaan iyadana rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya oo go'aansaday aniga oo maxbuus ah oo god salki ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamuus lana ii sii daayo iguna marti qaaday xafiiskiisa waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed habka uu dhaqmay ee isbedelka ee u soo daayay maxaabiistii ku jirtay jeelasha Itoobiya intooda badanna xaq darro u xidhnaa runtii ma aha taasi waxaan af ku soo koobi karno ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu u muuqday qof cadaaladda iyo sinaanta u soo jeeda qof walbana doonaya xaq iyo waajibka uu leeyahay inuu mariyo iyadana asagana waxaan dhihi lahayn halka inuu ka sii wado in kastoo u dhiman tahay meelaha qaarkood dhibaatooyinka ka jiray ay sidii u socoto waxaan aaminsanahay in ayadana xal laga gaari doono
aad baan ugu mahadcelinayaa qaabku u dhaqmay iyo qaabku siyaasiyiintii kale ula dhaqmay iyo qaabku xubnihii Soomaalida ahaa iyo oona lefti u xidhnayd habku ula dhaqmay iyo habku u sii daayay sidoo u maamuusay aad baan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan aniga qaabku ila tacaamulay iyo qaabku uu sii daayay isagoon cidina tala ka siinin isagoon cidina wax qorshe ka siinin cidda kaliya ee uu sheegay rag ayaga kamid ah maaha isaga uu sheegay hawsheeda markaan wax ka weydiiyay wuxuu hal nin ya arintaada in badan nagu soo celceliyay bi marna si ka fool aan isaga aragnay wuxuu ahaa bigu yiri Axmed Madoobe ma cadayn karo laakiin waa sidoo isagu u dhahayo sidaa darteed qaabkaas aad baan ugu mahadcelinayaa runtiina waxaad moodaa inuu jaha fiican qaatay siyaasiyiinta iyo madaxda sida uga hadlayeen waan la qabaa in jahada la qaatay iyo marxaladda maanta oo eeg marxalad kala guura in si fiican looga wada faa'iideysto lambar 6 waxaan u mahadcelinayaa dawladda Kenya oo noqotay dalkii labaad ee dadka Soomaaliyeed martina gelisay qaxootiyaad badan oo malyan gaaraya isla mar ahaantaana xarunteedii ay noqotay xarunta Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed xarun u leeyahay oo laga dhiso dadka Soomaaliyeed dawladda Kenya waxay qayb weyn ka qaadatay difaaca iyo dibdhiska dalka iyo dadka Soomaaliyeed sidaa darteed waxaan leenahay iyaguna waad mahadsantiin waan u mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan jecelahay hay'adaha xuquuqul insaanka gaar ahaan Human Rights oo iyaduna si aad u ballaaran oo baaxad leh xoogaala uga soo saartay bayaan ay ku cadaynayso dacatiga iyo jariimooyinka ka dhacay welina ka socda gobolka la yiraahdo Ogaadeniya ama Soomaali galbeed qaarkiin la yiraahdo waxaan u soo jeedinayaa madaxda wadamada in ay tixgeliyaan riboodka hay'adaha xuquuqul insaanka oo dadka dhibaatada gaadhay si fiican u soo diyaariyo xaqiiqa yana taas markaan ka soo laabto walaalayaal mahadcelintayda iyo xaaladayda waxaan ku soo dib ugu soo laabanayaa dardaaran haddaan maanta oo dhan wado saad u shaqayseen iyo sidaad u difaacdeen ummadda Soomaaliyeed qof walba Soomaaliyana uu maanta isku halaynayo dadkiisa iyo sida ay u diidiyayaan sida ay u garab taagan yihiin waxayna gelinaysaa geesinimo iyo raganimo iyo dadaalkeen inaan sii kordhino waxaan jecelahay in aan dib ugu soo laabto mar kale oo soo bilaabo mahadcelintii dadka Soomaaliyeed walaalayaal idinkoo mahadsan waxaan idin cadaynayaa idinkana idinkula dardaarmay koow idinka waxaad in dad Soomaaliyeed oo doon ka dhaxayso waxaan u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee dhalasho iyo dhiig iyo dalba wadaagta inay midoobaan gacmaha isqabsadaan wax wada qabsadaan is aaminaan wixii xurguf iyo walaal guba ee qulubtooda ku jirana inay iska dhaafaan isna cafiyaan sidoo kale waxaan jecelahay in aan u soo jeediyo madaxda Soomaaliyeed inay dadka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay dadka Soomaaliyeed madax cadaalad oo ula dhaqanta si daacad ah isku mideeya isu keena wanaagooda ka shaqeeya sidaa darteed waxaan leeyahay madaxda Soomaaliyeed xilka aad maanta haysaan biri waad ka dageysaan waxaana idinka hadhi doona raad taariikheed oo noloshiina ku yeelan doona raad aan ka hadhi doonin qof walba wuxuu maanta kaga tagay dadkiisa iyo wuxuu kula dhaqmahayaa waxay noqon doonaan raad lagu xusuusto taariikheed sidaa darteed dadka Soomaaliyeed maanta waxay idinka baahan yihiin heel iyo midayn iyo isu keenid iyo in la cafiyo inay is cafiyaan si daacadana aad u maamushaan taas ay idinka sugayaan haddii kale waxaad yeelan doontaan raad foolxun oo weligiin idinku reeba muruga aan idinka hadhi doonin intay hadda waqtiga u fursad baad haystaan madaxda ummaddu waa inay ka faa'iideysato fursadda dadkoodana daacad ula dhaqmaan ilaahayna ka yaabaan wixii xumaan ay wadaan ay ka joogaan markaan saa leeyahay maaha inaan tilmaamahayo group iyo dad gaara maaha ee dadka Soomaaliyeed madaxdiisa oo in badan oo kamid ah cabasha ay ka timaado inaasan dhila waxaan jecelahay in aan wax yar ka taabto madaxda dawladda Soomaaliland iyo Puntland dawladda Soomaaliland iyo madaxweynaheeda Muuse Biixi
aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa siday isugu tashadeen siday dadkoodii iyo deelkoodii u mideeyeen sida ay ammaankiisa u sugeen ay gaadhsiiyeen doorasho qof iyo cod ah oo lagu kala badiyo haldheeri sidaa darteed dadka kale waxaa la gudboon ee Soomaaliyeed iyo maamuladooda inay walaalahood kaga daydaan horumarka ay gaadheen iyo dadaalka ay sameeyaan waxaan leeyahay marka labada madaxweyne ee deriska ah ee dadkoodu walaalaha yahay dhibaatada waayahan ka dhaxaysay ee ka jirta tukarraq labada oday waa laba oday oo dadka Soomaaliyeed aaminsan yihiin inay aad iyo aad rag aqli badan u yihiin oo aqoon yahan oo wax gal ah hase yeeshee waxaa nasiib darro hankii laga filayay iyo maanta halka ay dhigeen dadka meelaha qaarkood waxay isku haystaan 1 kiiloomitir oo la tukarraq waxaa ku dhimatay dhalinyaro walaala ah oo gabdho iyo ragba leh yaa ku dhimatay waxaa ku gablamay waalido ilmihiisu ku dhintay waxaa ku agoontoobay caruur yar yar oo Soomaaliyeed waxaa ku rajoobay caruur yar yar oo Soomaaliyeed sabab la isugu qabsada hal bugcad oo kamid ah dalkii Soomaaliya oo dad walaala la isugu dilana ma garanayno sidaa darteed waxaan dhihi lahaa madaxdaas labada gobol labadaas dawladood in ay ka baxaan dhibaatadan iyo dagaalkan inay ka saaraan dadkooda inay u ogolaadaan deegaanka dadkii joogay ee ka barakacay noloshoodiina dhulka ku dhacday aad u burburtay inay mar labaad dib ugu soo noqdaan dalka deegaankoodii oo dib u dhisaan kaabadahoodii iyo dhaqaalahoodii iyo waxbarashada ilmahooda dib inay u dhisaan intaas waa inaan ka codsanayno waana qabnaa dhamaanteen inaan sidaa uga codsanno inagoo isku mid ah in ay meelaha khilaafaadku ka jiro iyo xumaantu in laga wada xalliyo si walaalnimo loo xalliyo waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed wixii khilaafa iyo kala qaybsanaana inay ku xalliyaan hab nabadgelyo iyo wada hadal inay ku xalliyaan aad baan u jeclahay waana ku codsanayaa waxaan u soo jeedinayaa dadka Soomaaliyeed wax ka dhaxeeya ma jiro oo dhibaato ah ha yeeshee waxay ku midaysan yihiin oo ognahay waxa jira cibaadada Ilaahay waxaan ahayn oo ku midaysan yihiin inta badan waxyaabo badan way isku khilaafsan yihiin wax badanna way ka midaysan yihiin laakiin arrinta mar walba khilaafka ee taagan ee Soomaali dhaxtaala waa arrin dunuub inagu dhamaanteen waa arrin dunuub ku dadka wada waa arrin foolxuma sidaa darteed cafis iyo masaamax in la dhaqmo si cadaalad oo sinaana on lahayn gobolaysi qabyaalad iyo qof jeclaysi midna ina ula dhaqmo dadka Soomaaliyeed laba inaan qayb ka noqdo xal u helida iyo isu furida qulubta dadka Soomaaliyeed ee walaalaha kana shaqeeyo noloshayda inaan ka shaqeeyo dadka Soomaaliyeed inuu walaaloobo gacmaha isqabsado taasna waa qorshahayga saddex waxa ay qorshaha sidaan horeyba ugu taagnaa in aan raadiyo dal Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo xor ah oo ka madax bannaan wax kasta oo gumaysi iyo cadaadis iyo dad kale ku hoos noolaanshaha mana aqbali doono waxaan aaminsanahay in wixii khilaafaad iyo colaad ee ka dhaxeeya ummadaha dawladaha urur iyo dawladba in lagu xalliyo hab nabadgelyo iyo wada hadal oo ummadda la gelinin dagaal aan dhamaanayn taa waan aaminsanahay in lagu xalliyo hab nabadgelyo iyo wada hadal wixii khilaafa ee ka dhaxeeya dawlado iyo ururo oo inaga khuseeya waxaan kaloo jeclaan lahaa in aan ayadana ugu baaqo ra'iisul wasaaraha Itoobiya maanta wuxuu waajahay in uu ka gaadho xal iyo go'aan fiican khilaafkii dheera ama khilaaf maaha dagaalkii dheera ay soo wada galeen shucuubta Itoobiya iyo ta Soomaaliyeed wuxuuna ii sheegay inuu diyaar u yahay inuu go'aan rasmi ah inuu ka gaari doono sidaa darteed waxaan ku boorinayaa inuusan arrinta kan soo noqonin ee ka dhabeeyo xaaladda ka taagan colaadan geeskan Afrika ee Soomaaliya oo dhan saamaysay ee Itoobiya saamaysay ee kacdoomada dhalisay ee abuurtay khilaaf iyo xataa Soomaali gudaheeda in waxyaabo ka soo dhashaan ee shisheeye Soomaaliya soo gelisay waxaas oo dhan waxay ka biqlahayaan xuduntoodu ay tahay gobolka adduunka u yaqaan Ogaden region ilaa khilaafkaas
ilaa colaadda halkaa ka jirto gobolkaa la xalliyana weligeed ma degayso sidaa darteed waa in gobolkaas xal laga gaadho waxaan jeclahay walaalayaal idinkoo mahadsan idinkoo runtii aan mar walba wajiyadiinu farxad gelinayaan inaan idinku baaqo in aan u wada dareerno inaan dhammaanteen ka wada shaqayno waa taydii horaan ku celcelinayaa midnimo soomaalinimo walaalnimo uurfayoobi waxaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo 3 heesood in la qaado 1 Soomaaliya toos 2 alla weyn ninkii aamina awood leh ummad waliba aayaheeda inay garato iyada leh arligaygow markaan uurka hooyaday ifka uga soo baxay leeydiisa udugale kii ugu anqariyow arligaygow midka ka horjeedee adoonsiga la jira sowma oga isagu inuu ku leeyahay in intaan hawlgal dhinaca lugta ama aan ka bilaabo dhuuso mareeb in aan tago boosaasan wadada u hayo in aan soo jiireeyo in aan tago lawyacado in aan ka gudbo oon tago muruxle iyo dumayra in aan tago warshaygu ka weey aad iyo aad baad u mahadsantiin hagaag waxaa jira asxaab buu ku aadan yaa waxaa qoraya aqoon-yahano Soomaaliyeed iyadana saasaad ula soconaysaan goorta uu soo baxana iyagaan ka sugaynaa Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha noolaato shacbiga Soomaaliyeed ha israaco